السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سود وهذا دمانتين ومركلة يعشر كني لبعض إن شاء الله تعالى Soomaali Web Trader haddaba maanta waxaan ku qaadan doonaa insha Allah tacaala 10 noo muhiim ah maantii aad iyo muhiim ah aadna ku anfici doona insha Allah tacaala 10kaasi wuxuu noqon doonaa ma sha Allah insha Allah tacaala terminology ana ka haray marka suuqan tan ku dhex jirto terminology ban ka hari doonin oo mataqaanay erayadan amaanta barin doona ay kamid yihiin erayadan maxaa kamid ah maanta daba erayadaas oo ku barin doono oo 10keeni labaada waxaad kaloo insha Allah tacaala soo bandhigna casharada model waxa la wixii basic ahaayo dhan maanta terminology kan barana insha Allah tacaala casharaadtoodii tawaysi waxa si gaarna xagga casharaadtii muhiimka insha Allah tacaala cashar ka sii dambeeyo maanta casharkan bilaabi doono waxa weeyaan terminology forex terminology waa maxay bib waxa laga wadaa qofku inuu bib garanay baa laga yaabaa qofkii haro soo gartayna de waa muraajacay noqonaysa always the lot size kumxuyahay tables of orders waxa la jira balance margin free margin iyo margin level waxa la jira marka waxa soo dhan waxa laga wadaaban qodna hadii la yiraahdo casharka ku xiga waxa weeyaan stop loss waxa laga wadaa take profit waxa laga wadaa unrealized profit and loss waxa laga wadaa iyo cashar ku xigo ah equity maxaa laga wadaa candlestick base currency and code currency payment trading inta waxaan ku dhigan doonaa casharka insha Allah tacaala waa maxay bib hadaba bib baan soo qaadan bib oo maxaa lahayd bibku saan ognahayba uu sheegista wuxuu leeyahay cabir loo cabir uu leeyahay for example in hadda soo qaadano guri marka la dhisayo de gurigu wuxuu leeyahay wax lagu cabiro meter buu leeyahay intaas oo meter baad iibsaday ma check intaas oo meter aan iibsaday balod intaas oo meter aan iibsaday ama golf intaas oo meter aan iibsaday fasoo yaqaan iyo oranay marka bibku waa wixii waa cabirkii suuq lagu cabiriyay intaas uu dhaqaaqay intaas yaa lacagta aad la gashay lagu dhufanaya saahan wasa bib marka waxay bib waxa loo soo gaabiyay percentage in point baa la yiraahdaa waa inta uu percentage u dhaqaaqay ama uu dhaqaaq uu sameeyay percentage ahaan baa la yiraahdaa hadaba si aan u trade garayno waxaan u baahanahay bibku waxa hadaba waa inta uu suuq u dhaqaaqay intii aad gashay dabadeed khasaare ama faa'iido ku dhaqaaqay for example halkan waxa loo yaalaa lacag la yiraahdo euro USD waxa arkaysaa halka kaga yaala 0.153 maxaa u dhaxay halkaas laba u dhaxaysa marka lambarka u dambeeya bibku waxa la yiraahdaa lambarka u dambeeya numberka koobaad si pointiga ka dambeeya ka ku xiga ka ku saddexaad ka afraad weeyaan bibku marka la joogo lacagta lacagaha dhamaantood marka laga reebo GBP JPY oo ah lacagta Japan iyo Ingiriiska iyo dahabka lacagta dollarka dahabka marka laga reebo ayagu ka labaada kuwan kale ayagu waa ka afraad waaye hadaba waad kala jaraysaa marka wax noqonaya two bib waxa kale oo la yaqaanaa spirit no macnaha bibis marka waa kaas spirit ku muxuu noqonayaa spirit ku waxa weeyaan dad noqosho spirit ku waxa weeyaan sida uu brokerku u faa'iido brokerku muxuu u faa'iidaa ama wuxuu ka faa'iidaa waxa la spirit oo for example lacagtu marka hore isaga inta ku soo qaatay wuxuu soo qaatay lacagta markuu isku soo qaadanay bangiga oo kale ka soo qaadanay ama gacantiisa ku soo qaadanay wuxuu ku soo qaatay 1.1051 ku soo qaatay adigana wuxuu kaaga iibiyay saahan 1.3 gas 53 gas marka laba bib baa ugu jirta oo faa'iido ah oo ka dhaxlay ama waxa wax commission la yiraahdo lacag baa abato marka orderka ku dhufto wax yar ama senti ah adigu waxaad la sayska ku gashay ku xilantahay ayuu ka goosanaya ama lacag caadi ka goosanaya ama wuxuu ka goosanaya bib ka goosanaya macnaheedu waa habka uu isagu u faa'iido waa tahay waysa losses ku xiya losses ku waa qiimo cayiman oo aad la gashid lacagta marka suuqa la gashid su'aal ahaan $100 baa kugu jirta $100 kugu jirta $100 lama rabo maanta hal trade euro USD inaad la gasho lama rabo wax kamid ah ayaa la galaysa
macnaha qayb ka mid ah ayaad ku maalgashanaysaa. $100,000 baad haysataa, 10,000 guri baad ku maalgashatay, 10,000 bakhaar baad ku dhistay. Macnaha waa maalgashi weyn oo kale. Marka wax ka mid ah ayaad mataqaanaa ku maalgashanaysaa. Haddaba waxa loo qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa oo ugu waaweyn. Saddexda ugu muhiimsan waxa weeyaan ama 4 ka soo qaadno. Standard lot waxa la jira. Standard lot unit waxa markaad leverage isticmaasho, leverage waxa la isticmaalaa oo lacagta power ku sameeyo. Oo for example haddaad $100 ahayd oo 100 samayso, dee halkii $1 macnaha suuqa la gelinayd macnaha wuxuu kugu dhigan yahay lagu leeyahay adoo haysta ka soo qaad $100 kale. Markaas waa leverage, waa powering la siinayo qofka si uu suuqan bilaayinta qofka haysta uu galayo hawla tirar garan karo weyn. Marka dib baan ka arki doonaa iyadana, laakiinse standard lot baa jira. Standard lot wuxuu dhigmaa 100,000 iyo dhigmaa oo units value ahaana markaad gelinaysa MT4 kaaga wuxuu u dhigmaa 0.00. haddii maqaanay dollar ahaan haddaan u bedelana wuxuu noqonayaa $10 buu dhigmaa. oo move kasta oo suuqu dhaqaaqo hal bib kasta oo dhaqaaqo suuq wax lagu dhufanayaa $10 baa lagu dhufanayaa. hadduu 5 bib dhaqaaqo 5 bib 10 ku dhufo waa $50. hadduu maqaanay dhaqaaqo 8 10 dhufo maqaanay 10 waa $80. waa saas oo kale weyn. waxa jira mini lot mid la yiraahdo oo unit ahaan u dhiga $10,000 oo ah 0.01 wuxuu u dhigmaa $1 dollar ahaan wuxuu dhigmaa $1 buu dhigmaa. $1 baa suuqa la galaysa. marka halkii dollar hadduu suuqa xagga wanaagsan u dhaqaaqo 70 bib hadduu dhaqaaqo oo xaggii profitka wanaag xagga rajaynaysa adigu suuq marka soo la iskareysatay hadduu kugu dhaqaaqo maxaad helaysaa $1 baa ku dhufanaysaa $70 baad helaysaa. hadduu minus aadana oo stable badanka 70 mil lagama dhigo laakiin dadka ba dhigtay 70 mil baa soo minus aad galaysaa. waxa lagu xiga marka waxa la yiraahdo mini lot iyo micro lot baa jira. micro lot kuna waa waxa u dhigmaa $1 baa la yiraahdaa 0.01 oo kale dadka ugu badan ma ku galaa hadda kunka ugu yaryahay 10 cent baa u dhigantaa 10 cent aan iyo u dhigantaa. marka taana waa lagu galaa. nano lot baa jira 0.001 u dhigantaa. marka matqaantan badanka laguma tirin karayo. marka kuwa kale waan sii arki doonaa insha Allah taala. waxaan ugu xigaa waxa la yiraahdaa types of orders oo natiijo doono marka telefoonka la shirkadayay insha Allah taala yaan isagan arki doonaa. types of orders waxa la yiraahdaa jireysna oo muxuu yahay types of orders. types of orders waxa weeyaan macnaha marketka markaad suuq galaysid laba siyaabood baa loo galaa. labada siyaabood loo gala waxa weeyaan in suuqii aad ku gashid market execution wax la yiraahdo. tusaale ahaan USD baad aragtay ayadoo meeshii oo ku tagan baad aragtay waa soo analyze garaysatay waxaad ku dhufanaysaa buy ama sell baad ku dhufanaysaa. taas maxaa la yiraahdaa market execution. isla markaa yaad galaysaa. ma yana waxa jira kuwa kale ayagana waxa jira matqaanay aad xilli kale isticmaalaysid oo odhanaysid suuq imika ma galaya laakiin marka waxaan galayaa markuu soo noqdo kale for example yaan galayaa ee odhanaysaa hadaan imika tuso wax yar sorry for example suuq imika xaggaas u socday kor buu socday suuqan waxa ma doonaysaa adigu matqaanay inaad halka net ka gasho ma rabtid halkaas kale inaad ka gasho rabtaa. oo for example suuq san u soo noqday taas u soo noqday halkan oo kale ka galaysaa adoo waxaad oranaysaa halkaas ka galaya markuu soo noqdo halkaas ka kala galaya. wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo limit buu noqonayaa. limitku marka muxuu yahay? limitku waa suuq san u socday waxaad oranaysaa anu baskii oo waxa tagtay for example waxa tagtay xaafada wax ka socotay inaad suuqa tagta doonaysid. suuqa inaad tagta doonaysid suuqa marka inaad tagta doonaysid baskii xaafada inaga horeeya kala ku dhaaf waxaad oranaysaa waan sii sugayaa bartan istaanka ku sii sugayaa markuu soo noqdo suuqa tagayo ayaa sii raacaya
kaasi muxuu noqonayaa waa markaad bay amba guraysa masal waxa odhanaysa markaa waa suuq aanan meeshiis iminka uu joogay aanad ka gelin ee ka galayso markuu soo laabto ama uu for example sorry marka labadaasi kaliya marka kan kalena waxa weeyaan waabad ku sii sugaysaa suuqa halka hore ayaad ka galaysa oo kanoo kale maxaa la sameeyaa markaad doonaysid suuqa in aanad maanta dhan aanad maanta qofka aanad suuqa dul joogin badanka ayaa orderadan isticmaala maadaama wuxuu odhanaya anu suuqan dama suukan intuu soo laabanayo ama uu noqonayo waxaan rabaa suuqa hadduu hoos soo daato soaan meel resistance ahayd ama meel suuqa laga celiyey oon ku arki doono cashiraanta dambe ayuu ku sugayaa qofkii oo wuxuu odhanayaa cashir anuma suuqa saas u socday meel buu aaday oo resistance meel oo dimadka mar hore laga celiyo bluwen soaan hadhow aan arki doonaa marka wuxuu odhanayaa suuqa markuu soo noqdo halkan yaroo kale markuu socdo yaa sii raacaya waan sii raacaya isaga waa sii raacitaan suuqa waa sii raac xagga u sii socdo u sii raacaysaa laakiinse kuwan kale waxay kaga duwan yihiin jihadii aa u socday maaha jihada kale ayaad u raacaysaa kuwan ka horena muxuu ahaa by stopka waxa weeyaan by suuqa by kulliba kor buu socdaa suuqa kor socda by haddaad maqasho marka suuq by hadduu socdo waxaad odhanaysaa halkanoo kala socodsaa suuq halkaas u marayay halkaasaad ka galaysaa waxaad odhanaysaa isii raaci suuq kor isii raaci ama suuqa halkan hoos buu socday halkaasuu kala socday halkan ka galaysaa hoos iigu sii darbaad leedahay labadaasii kaliya suuq waad sii sugaysaa waad sii raacaysaa suuqna markuu ku dhaafo soo noqdo iyaad raacaysaa for example kan maxaa la yidhi the order waxaa la yidhi kan order placed above the price maxaa la dhigay priceka meel ka sarraysa qiimihii halkan uu joogay halkaad ka galaysaa kor baa usii raacaysaa ya ka kale muxuu noqonayaa order place and keeps going down waxaa leeyahay bilow baa dhiganaysa xagga ka hor sida dhigaysa halka yar kala dhiganaysaa hoos baa usii raacaysa halkan kale waxaa pricekii muxuu tegaya basic below the price meel ka hooseysa dhigaysaa and then price then goes up halkan waa kala dhiganaysaa suuqa xaggan usoo socday oo kugu soo noqday areadan kala ka raacaysaa buy limit macnaha suuqa tan waxaa kala duwan yihin jihadii au suuq u socday baa usii raacaysa laakiin ka kale maxaad ku kala duwan yihin jihada au suuq u socday maaha jihada kala socda iyadoo raacaysa markuu buy yahayna buy suuqa kor buu u socdaa haddaad buy maqasho kor buu socdaa hadduu sell maqashana suuq waa hoos buu socdaa labadaas bay kala yihiin I think inaad fahantay baan filayaa inaad xaggaa fahantay baan filayaa insha allahu tacaala haddaan sii dhaafno cashirka inoogu xigaan kalno waa maxay balanceigu waa maxay balanceigu laba shay buu noqdaa balance markaad maqasho waxa weeyaan lacagta meesha aad deposit garaysa lacagta meesha aad dhigatay bangigaaga oo kala soonaan akoonkaaga lacagta aad dhigatay waxay ku tahay balancigaaga muxuu maray hadda lacag kala soo baxday intaasoo balance ku hadha lagu odhanaya ama balance waxay noqonaysaa hadhaagaaga mar walba kugu jira meesha marka ama lacagta aad dhigatay hadhaagaagu waaba ku odhanaya moogtay markaad dad aragto mataqaanaa telefoonada kale dadka isticmaala adeegyada oo ama saadka ama lacagta oo prepaidka kale marka waa lacagta kugu jirta meesha deposit garaysa markaaga hore ayaa la odhanayaa balance wax kaloo la odhanayaa intaanad wax trade gelin balance ma noqonaya for example xagga aad u shaadinaad ka arkaysa mooyaane balancegaagu waxaa qofka ahaa $103 buu ahaa equity-gu wax kale maaha waan arki doonaa equity-gu wax kale mahayne waa lacagtii markii aad gashay balancegu wuxuu noqonaya mar walba isma dilin ilaa trade-ka aad xidhayso intaadii horaa meesha balance ka muuqanaysa laakiin equity-gu waxa weeyaan ama balance baa ku kordhay ama minus lacagtii ama khasaarad gal ama la soomaa inta aanad xidhin equity-gaad ka arkaysaa equity-ga ayaa ma ka go'aysaa ama way ku beeraysaa waaya balances waan xaflay inaad fahanteen marginku wax marginku hadaba wax weeyaan marginku waa qayb ka mid ah lacagtaada oo marka aad trade-ka furto security ahaan oo percentage weeyaan oo lagaaga qaadayo si security ahaan lagugu ilaaliyo for example qofku damaanta oo dhan trade iskama wada galgal karo soo baal dooranaysa trade ma galayo waxay tiraa limit oo gali karo intaas trade uu gali karo marka si uu limitka qofku trade ka soo galayo waxbaa loo asteeyay qayb baa loo asteeyay marka qaybta unbuu ku gali karaa marka waxa la yidhaha waa qayb lagaa sii haynayo kale for example percentage waxa kaloo la yidhahdaa waa
price-ka aad lacagta ka gashay oo lagu dhuftay loss size-ka aad ku gashay oo loo qaybiyo leverage aad isticmaalayso waxa leverage la yiraahdo oo arki doono kaana waa loo yaqaanaa haddaba waxa jira wax la yiraahdo free margin waxa weeyaan marka lacag free margin wax kala ma waa margin waa soo sheegnay waa usage margin iyo free margin waxa la jira usage margin waa inta aad isticmaashay trade ku gashay free margin waa inta aad ku gali karto trade hadduu free margin ka fiican yahay trade kale wali waad gali kartaa macnaheedu weyn haddii laakiin free margin aanad free margin aanad haysan wax trade ma gali karto ninkan odayga sawir ka aragtaan dabba hoos kaga baxaya dabkaasi wali heer ma una gaadhin oo ninkani kululaado marka uu iska raaxaysanayaa uu marka safety wuu ku jira weyn macnaha wali safety baad ku jirtaa oo trade kale waad gali kartaa account-kaagii uu bad qabaa weeyaan macnaheedu haye margin level ba jira margin level-ku waxa weeyaan marka uu soo gaaro level-kan aad ka baxayso suuq ka saaraya su'aalahan hadduu margin level-ka uu $100 ka hoos maro $100 hadduu ka hoos maro margin level-kaagu suuqu ka saaraya bro waa xidhaya sababtoo level baa jira loogu talagalay qofka hadduu ka dhaafo dee si aanu mataqaanay awna khasaaro xagga brokerku adiga ma ku koobnaado dee warka waa in laga saaraa marka ninkan odayga waa kan marka hore uu raaxaysanay haddana dee waa bas biyay macnaha saas weeyaan marka waxa jira haddaba waxa la stop loss ku fiican stop loss waxa weeyaan saahan suuqu buy baad ka soo gashay xeer sorry سألت فلانتان توليس كسمعله سان سوقو حكم دي سان وصل شيء من هذه دي وصل نقضي ها وصل نقضي هذا وصل نقضي حسبين هل كانوا كلا سوق كجاش مرك هل كان سوق يا سوق كجاش صار حاجة سوق هوس بأن تي بي عمره باللو يا لقى ريت لكن صار كسوق هوس بأن هل كان سوق الله هاي تي بي يقول معناها هل كهذا العكس سوق قاعدو تيك بروفيت كذا وش عن هلا سوق عن كذا كشقيس يقصر وتوات كذا زي كذا صار حضو ما يسوق الصواب النقطة أو جهدي بدش أو كرة صعود استبلس هالكان بجلس حاول نسافرك حضو استبلس كده حضو بقى هالكان دافو يجي تشوش بلا إنه بتسوق نص ساعة مثلا مرة والعكس إذا دمات وحرب إنه ليمت كاكو تشوكسي كاتشوكسني مركا وإري لا استعماله إلا إسكاجا إلى سأل خساروين وقل أو ما تنا خساره هو شو واد معمول كرتا أكون حاجة أو أضايا وحرنتها marka doontanawad ka saari kartaa marka doontanawad ku diisan kartaa marka dad diisan aday ku talaa marka iska sii soconaya suuq take profit ka soo sheegnay waa ee qaad qiimihii ama wixii aan ka shaqeystay salaaween xiraan dambe si fiican insha Allah taala u fahmi doon unrealized profit and loss and equity man dhigan doona unrealized wax kale ma trade bad gashay trade kaas wuxuu ku wadaa loss ama profit خاص بحال يقعنا الرياليسي بالله لما هو مركا معناها وليكم حري إلا تريد كان الحدو بالانسيا كمان وقايو كمان بيرل معنا العقد هورك وجود شرسي كمان بيرل العقد إلا الحديد حتى الحديد صارن فإذا كودي بالانسيا كو بيرل أو تريد الحديد حتى يلا ما يسكت أو تكون حدنا بكبر عيسى لكن أنت ورئيسة وسكسر عمرك واحد الرياليسي واللي ما لو أني ولي ما أهن يكتبوا عن حي equity-guna waa balance-gaaga oo loo geeyay ama laga jaray trade-yada imka ku jirto waxay ku wadaan hadaba waxa jira wax la yiraahdo sida candlestick manager candlestick wax kala ma isaguna waxa weeyaan suuqa shumacyo sameeya shumacyada garanaysan la shidin jiro wax sameeyo marka kan green oo kale badanka waxa weeyaan buyerska macnaha intuu suuqan uu socday oo candlekaasi socday waxa uu badnaa suuqa nimanka la yiraahdo buyerska ee suuqa ku badnaa weeyaan intuu kan kala socdayna sellerska ayaa ku socday markasti oo
wuxuu leeyahay time frames waxa laga dhigan doona insha Allah tacaala time frame wax kala ma ahayn waqti 30 minutes ka dhigan 1 hour 4 hour macnaha dadka ku jira suuqaasi buyers bay hayeen mise sellers bay lacagtaas buyers ku badnaa mise sellers ku badnaa labadaas un bay noqonaysaa waxa ay hel la sheegayo lacagtu midka ay ku jirto marka casharanta dhammaan insha Allah tacaala intani in ka faahfaahsan aan ku qaadan doono waxa filan inaad wax badan ka fahantay insha Allah tacaala I hope inaad fahanteen wax badan haddana fahmina commentiga wixii qaad ku jiro kale waan ka sixi karnaa qofkii u baahna insha Allah tacaala waa la wadaagi doontaan aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan cashir lamida isugu iman doono wixii basic insha Allah tacaala oo dhan ilaa advancedka halkan aan ka soo gelin doonaa haddii la idhaahdo waad mahadsantihiin dhammaantiin